taariikhdii madaxweyne sheekh maxamuud madaxweynihii sideedaad ee dalka Soomaaliya ahna madaxweynaha tobnaad ee hadda talada haya oo aan soo koobay ayaan idin soo gaarsiin doonaa aniguna waa libaax barqiye haddaba aynu gudagalno taariikhdiisii madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu ku dhashay degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan sanadku markuu ahaa 1955 waxbarashadiisii aasaasiga ahayd waxa uu ku qaatay gobolka Hiiraan dugsiga sare iyo jaamacadda waxa uu ku qaatay magaalo madaxda Muqdisho oo uu u wareegay waqtiga waxa uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud shahaadada koowaad ka qaatay jaamacaddii ummadda sanadku markuu ahaa 1981 isaga oo ku taqasusay culumta farsamada gacanta shahaadada labaad ayuu ku qaatay maamulka iyo maaraynta sanadkii 1988 jaamacadda Barkatullah ee hore loogu yiqiinay jaamacadda Bobal shaqooyinkiisii ugu horeeyay waxaa ka mid ahaa inuu tababare ka noqday dugsigii sare ee farsamada gacanta ee Lafoole inta badan shaqooyinkiisu waxay ahaayeen waxbarida ama macalinimada madaxweyne xasan sheekh maxamuud noloshiisa inteeda badan waxa uu ku soo qaatay shaqada macalinimada isagoo iskuulo badan iyo jaamacado ka soo noqday bare sare sida uu ku sheegay khudbadihiisii hadal jeedinta ahaa ee musharaxnimada 2015 ayaa Barakatullah guddoonsiisay darajada Doctor of the Literacy iyadoo loo aqoonsaday waqtiga dadaalkiisii dheeraa ee uu ku bixiyay waxbarashada ubadka Soomaaliyeed sidoo kale jaamacadda Eastern Maynard maxadka nabadda ee Virginia ayuu ka qalin jabiyay arrimaha dhexdhexaadinta tiiraayo bixinta iyo dhisidda xarumaha nabadda ee waxbarashada dagaalkii sokeeye markuu qarxay 1991 waxa uu noqday sargaal dhanka waxbarashada kala shaqeeya UNICEF sidii dib loogu furi lahaa dugsiyadii xidhmay ee waxbarashada intii haddaba uu UNICEF la shaqeynayay waxay ahayd bilowgii 1993 ilaa 1995 sanadkii 1999 ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud wax ka aasaasay maxadka maamulka iyo maaraynta iyo horumarinta ee Simad oo markii dambe jaamacad weyn noqotay iyada oo hadda 24 jirsatay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu maamulay ka ahaa jaamacadda Simad ilaa iyo 2010 haddaba 2011 ayuu mar qura madaxweyne xasan sheekh maxamuud u xuub siibtay siyaasadda wuxuuna dhidibada u taagay xisbigii nabadda iyo horumarinta kadib xubnihii xisbiga ayaa u doortay April 2011 inuu hogaamiye ka noqdo xisbigaas saddexda sane ee ugu horeeya haddaba ka hor intuusan madaxweyne ka noqon Soomaaliya waxa uu ka mid ahaa xubnaha bulshada rayidka ah intii uu ku sugnaa gudaha Soomaaliya waxa uu ahaa ganacsade iskiis u shaqaysta waqtigii uu dalku ku jiray burburkii ka dhashay ridistii dawladii kacaanka marka laga soo tago xirfadiisa baranimo iyo siyaasadda haddaba madaxweyne xasan bishii August ee sanadkii 2012 waxa uu xubin ka noqday baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo markaas la dhisayay waxa uu u tartamay jagada madaxweynenimo ee Soomaaliya isagoo hoggaanka u qabtay madaxweyne xasan dawladii ugu horeysay ee Soomaaliya laga hirgeliyo muddo 20 sano ah taas oon ahayn ku meel gaar haddaba dawladihii ka horeeyay ee la dhisi jiray laga soo bilaabo 1991 waxay ahaayeen kuwo ku meel gaar ah markii la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu xilka ra'iisul wasaaraha u magacaabay Cabdi Faarax Shirdoon oo ku cusbaa saxada siyaasadda 12 bishii sagaalaad sanadkii 2012 markii xasan sheekh maxamuud loo dhaariyay xilka madaxweynaha laba maalmood kadib ayaa qarax lala eegtay goob uu ku sugnaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa madaxweynaha kaliya ee labo mar Soomaaliya madaxweyne ka noqday waxaa xilka madaxweyne loo doortay markii ugu horeysay 10 bishii Sebtembar ee
sanadkii 2012 isagoo ka degay 2017 kadib markii lagaga guulaystay doorashadii 7 February 2017 balse waxaa dib loo doortay doorashadii ka dhacday 15 May 2022 lagu qabtay taandhadii Afiona. daawadayaal la socda qaybta ku xigta oo aan soo dayn doono.